waxaan u baahanahay hogaamiyaha marxaladda soo socda imaan doona inuu noqdo hogaamiye indhihiisa furan yihiin inuu noqdo hogaamiye miisaami kara geopoliticska nagu hareeraysan hogaamiye ka warqaba loolanka siyaasadeed ee gobolka dhow kan dhexe iyo kafo ka dhaxeeya ee Soomaaliya ku jihaysan ma aha hogaamiye meeshii looga yeer dhagtiisa maqlay ma aha hogaamiye qariska tuur inuu noqdo oo qariska tuurnimada waa wixii diiray diblomaasiyadda Soomaaliya lixdankiisa la soo dhaafay mana aha hogaamiye inuu noqdo iska hiiraacayo oo meeshii looga yeero farta looga fiiqi tagayo ma iyo waxa la yiraahdo wixii saxiix la yiraahdana qalin ku jiiday wuxuu u baahan yahay hogaamiye isku miisaami kara danaha kala duwan ee gobolka iyo midda adduunka isku miisaami kara inuu yahay ayaa loo baahan yahay muhiimsan waa midaas waxa soo dhan marka maxaa asal u ah ciidankan tirada badan ee 50 kun oo haysano oo AMISOM 5 dawladood ka joogan ugu yaraan waxa lagu leeyahay 6 dawladoodna mishaarkiisa ay bixisaa iyo laba hay-adood iyo ciidankan tirada badan ee Soomaaliya isdhex yaacsan maxay wax u qabalayeen halka aan rabo inaan gundhiga ka dhigo waa halkan waxay wax u qabalayeen hal waxa maqan waa accountability waa isla xisaabtanka yaa asaas u ah baarlamaanka arrin oo mudnaan aan sii doono ta koowaad baarlamaanka inuu xuquuqdiisa iyo gunooyinkiisa helo hadday tahay mid mishaar hadday tahay mid caafimaad hadday tahay mid amni oo ka madax banaanaa karo xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qodobka labaad maxay tahay baarlamaanku shaqeyn karaa waa inaan organize garaynaa siyaasadda oo nidaamsan oo nidaamino kaliya ayaan ku nidaamin karnaa waxaan rabaa qodobka ugu dambeeyo oo taabanay inuu yahay qodobka musuqmaasuqa iga raali ahaada musuqmaasuqa aad looga hadlay waa mid ka ragaadiyay dawladnimadeena musuqmaasuqa muxuu yahay marka musuqmaasuq waa laba nooc musuqmaasuq askartan masaakiinta iyo shaqaalaha dawladda rankiga dhexe iyo kuwa xafiisyada jooga ay ka shaqeeyaan oo ay danaha markay fududeynayaan mishaarkooda qaataan wax yarka ay khidmada ay dadka qaataan lagu magacaabo musuqmaasuqna muxuu yahay musuqmaasuqna waxa waaye midka siyaasadeed soo u yahay mid siyaasadeed wuxuu u yahay hadday koox xukunka qabsato oo isku daydo intay is abaabusho ama magac diineed ha yeelato